magaalada Cadiz ee dalka Spain ayaa wada qorshe lagaga saarayo magaalada in ka badan 5,000 oo shimbirta qoleyda ah kadib markii magaalada ay ku bateen shimbiraha qoleyda. Mas'uuliyiinta magaalada Cadiz ayaa sheegay in la bilaabay qabqabashada shimbirta qoleyda si loogu daadgureeyo magaalooyinka kale ee dalka sida magaalada Valencia. Antonio oo duqa magaalada ayaa warbaahinta u sheegay in ganacsiga magaalada uu hoos u dhacay isla markaana ay adkaatay in la ganacsado maadaama qoleyda tirada badan ee magaalada ku nool ay buux dhaafisay wadooyinka magaalada. Arrintan oo mararka qaar keenta in samxadda wadooyinka ay aad u badato. Mas'uulkan ayaa intaasi ku daray in shimbirta qoleyda ee magaalada ku nool xilligan ay ka badan tahay 8,000 sidaas darteedna ay qorsheeyeen in 5,000 oo kamid ah la ururiyo deetana loo qaybiyo magaalooyinka kale ee dalku uu ka kooban yahay. Qaar kamid dadka ka ganacsada magaalada ayaa dhankooda warfidyenada u sheegay in marar kala duwan ay dawladda u gudbiyeen codsiyo ku aadan in xal loo raadiyo qoleyda buux dhaafisay wadooyinka magaaladan. Dalka Spain ayaa kamid dalalka ugu badan ee ay ku nooshahay shimbirta qoleyda, waana sababta keentay in hal magaalo oo kaliya laga helo in ka badan 8,000 oo shimbirood gaar ahaan nooca loo yaqaan qoleyda.